kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka isha wararka TV waana 3 bisha November sanadka 2020 qodobada aad ku daawan doontaan warka janalkana waxa kamid ah xiliyadan oo kale markii la soo gaaro waxay mas'uuliyiin badan ku mashquulaan doorashada iyo ololaheeda golaha wasiirada Soomaaliya oo hotel qaali ah ku shiraya 3 maalin haddaba 5 arin oo looga hadli doono shirkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa afar arin oo keentay iscasilaadii madaxweyne Waare maxay kala yihiin warka ayaad ku daawan doontaan Ali Xuseen oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho shacabka Galmudug oo war fiican oo uu soo yeeray haddaba warkaasi muxuu yahay iyo gabar 4 jir ah oo 91 saac kadib laga soo saaray burburka dhulgariirkii ka dhacay magaalada Izmir ee dalka Turkiga intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii ugu waaweynaa warka janalka isha wararka TV fadlan haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir oo subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 saacan halkan ku baahin doono aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka share gareeya lacagtiina waa inoo muhiim daawadayaal haatanna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa shir soconaya muddo 3 maalin ah waxa ay ku yeelan doonaan hotel qaali ah oo ku yaala garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho haddaba 5 arin ayaa shirkaasi la sheegaya in looga hadli doono golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta shir uga furmay hotel ku dhex yaala garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho kaas oo uu shir gudoomi doono ra'iisul wasaare Roble shirkan oo loogu magac daray shirka banbaxa golaha wasiirada ayaa looga hadlayaa dardargelinta qorshayaasha xukuumadda hortabinta u leh gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga kordhinta dhaqaalaha dhinacafinta horumarinta adeegyada bulshada cadaaladda iyo qorshaha waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaana sheegay in xukuumaddiisa ay ku shaqeyn doonto qorshaha horumarinta qaranka ee 9aad iyo natiijadii ka soo baxday shirkii madaxda qaranka ee ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho banbaxa golaha wasiirada maanta uga furmay ee halku dhigiisu yahay daahfurnaan iyo sidoo kale doorashooyin ayuu tilmaamay ra'iisul wasaaruhu in wasaaradaha oo dhan laga rabo barnaamijyadooda in ay ka soo dhax saaraan qorshaha howleedka 100 maalmood ee soo socota taas oo lagula xisaabtami doono wasaarad kasta ra'iisul wasaare Roble oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri sida aan ka war hayno xiliyadan oo kale markii la soo gaaro waxay mas'uuliyiin badan ku mashquulaan doorashada iyo ololaheeda taas oo keenta gaab isku yimaada shaqooyinka iyo adeegyada ay dawladdu u hayso shacabka Soomaaliyeed haddaba si taal looga hortago waxa la idinka doonayaa in aad si miisaaman u filisaan howlaha idinkaga aadan doorashooyinka idinka oo gudanaya mas'uuliyadda iyo waajibaadkiina shaqo ee kale ee aad wasaaradaha u haysaan shirka banbaxa golaha wasiirada oo socon doona muddo 3 cisho ayaana waxa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursi Sheekh Cabdiraxmaan oo golaha kula dardaarmay inay hirgeliyaan qodobo saldhig u ah barnaamijka xukuumadda ee golaha shacabka ay ansixiyeen si kastaba shirkan ayaana ka qabsoomaya hotel lagu magacaabo Dikaal oo ku yaala garoonka aadan cadde kana mid ah hotelada ugu qaalisan ee magaalada Muqdisho dadka qaar ayaana sulugay in golaha wasiirada ay ku shiraan hotel qaali ah xilli dad badan oo danyar ah ay la dhibtoonayaan roobabkii ka dhacay saacadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya geesta kalena waxaanu eegaynaa afar arin oo keentay iscasilaadii madaxweyne Waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xalay waxa uu sheegay inuu iska casilay xilkaasi isaga oo sulugay habka loo maareynayo doorashada maamulka cusub ee Hirshabelle si kastaba ila wareediyo ku dhawaare ayaa isha wararka TV waxa uu sheegay in iscasilaadiisa ay ka dambayso dhowr arrimood oo isbiirsaday oo ku qootoma Hirshabelle iyo faragelinta dowladda Soomaaliya qodobadaas ayaana kala akow inuu xalin waaye muddadii uu madaxweynaha ahaa tabashooyinka ee qabaan shacabka Hirshabelle gaar ahaan beesha uu madaxweynaha ka soo jeeday isla markaasna hadda saartay cadaadis badan labo in dhismaha Hirshabelle wali socda isla markaasna la iska intiray baaqiisa iyo kan ka soo baxaya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer Hiiraan taasina ay gelisay walwal ah in la dhiso maamulka iyadoo oo aan laga jawaabin tabashada shacabka Hiiraan si aan taas isaga loogu eedenin 3
in cabashooyinkii uu u gudbiyey madaxda dalka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh shariif iyo siyaasiyiin kale oo ku saabsan in lasoo farageliyo arrinta hirshabelle la iska indhitiray xili la rumaysan yahay inay taageersan yihiin in qof ku beel ah loo doorto madaxweynaha cusub ee hirshabelle. afar in dowladda federaalk soomaaliya saartay cadaadis badan islamarkaasna loo diiday inuu ka baxo magaalada muqdisho si ugu yaraan uu u muujiyo aragtidiisa doorashada hirshabelle maadaama uu kursiga ku matalo mid ka mid a beelaha gobolka. iscasilaada waare ayaana timid xili waqtigiisu dhammaaday baarlaman cusubna loo dhisay hirshabelle islamarkaasna uu magacaabay dhammaan guddiyadii doorashada laga sugayay ee heer federaal, taasi oo macnaheedu yahay in wax saameyna aysan yeelan doonin iscasilaadiisa. wararka qaar ayaana dhanka kale sheegaya in iscasilaadan ay isla ogyihiin dowladda islamarkaasna tani ay tahay cayaar siyaasadeed heshiis ku xiran oo uu ugu baxay. madaxweyne waare oo ah aqoon-yahan degan ayaa la sheegay in muddo dheer uu usoo samaray hirshabelle inkastoo ay dhinac dhigeen culeysyo ka weyn oo deegaanka ka jira. dhanka kalena cali xuseen ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada muqdisho. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo afgooye. qaraxan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ahaa mid lagu xiray gaari nooca raaxada oo qarxay xili uu maraya deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho. wararka ayaa sheegaya in qaraxaas uu ku dhintay wadihii gaariga iyadoo goobta ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo sameeyay baaritaano kooban. dhanka kale al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaas iyadoo ay shaaciyeen inay ku dishay guddoomiye ku-xigeenkii deegaanka siinka dheer sida ay hadalku u dhigeen al-shabaab ayaana sidoo kale magaca marxuumkan waxay ku sheegeen cali xuseen iyagoona tilmaamay in lagu khaarijiyey qarax lagu dhajiye gaarigiisa. ilaa iyo hadda ma jirto wax hadala oo kasoo baxay dhanka saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi. dhowaan ayay ahayd markii al-shabaab ee guddoomiye waaxid ka tirsan degmada kaxda ku dileen duleedka magaalada muqdisho iyagoona raggii fuliya toogashadaas ay gaariga marxuumka ku xireen arax sababay khasaare kale oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. inta badan al-shabaab ayaana weeraro u badan qaraxya ka fuliya wadada dheer ee isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka isha wararka TV. bal iminkana aanu eegno war cusub oo uu soo yeeray shacabka reer galmudug. wasiirka wasaaradda dekedaha iyo kalluumeysiga dowlad goboleedka galmudug cabdi saabir ashuuriye ayaa maanta waxa uu shaaciyay heshiis khuseeya dekeda hobyo inuu la saxiixday shirkado laga kala leeyahay dalalka turkiga, ingiriiska iyo soomaaliya. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan uu khuseeyo dhismaha dekeda magaalada hobyo islamarkaasna arrinkan si degdega loo dardargelin doono. wasiir saabir shuuriye oo arrinkan ka hadlaya ayaa yiri heshiiskan waxaa qayb ka ah in dhammaadka bishan ay dalka soo gaari doonaan kooxda hore ee sahanka si ay u qiimeeyaan hababka kala duwan ee dhismaha iyo howlgelinta dekeda, farsamada, sameynta deegaanka iyo beycada iyo guud ahaanba diyaarinta qorshaha buuxa oo cilmiyeysan islamarkaasna waqtiyeysan oo waafaqsan halbeegyada caalamiga ah. halka wejiga labaad ee dhismaha uu bilaabo doono sida uu wasiirku ka dhawaajiyay bisha Maaj sanadka 2021. wasiir saabir ayaana yiri waxaa xaqiiqa ah in dhismaha dekeda hobyo uu abuuri doono fursado shaqo, ganacsi oo horseeda isbedel dhaqan dhaqaale oo muuqda, saameyn toos ahna ku yeelan doona nolosha malaayiin ku nool galmudug iyo dowlad goboleedyada la dariska ah. ugu dambeyntiina gabar yar oo 4 jir ah ayaa 91 saac kadib waxaa laga soo saaray burburka dhismayaashii ku burburay dhulgariirkii ka dhacay magaalada Izmir ee dalka Turkiga. shaqaalaha gurmadka ee weli ka howlgalaya magaalada Izmir ayaa waxa ay ku guuleysteen inay maanta soo saaraan gabar yar oo 4 jir ah taa oo la sheegay in 91 saacadood ay ku jirtay dhismayaashii ku burburay jimcihii magaalada Izmir ee dalka Turkiga kadib dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay magaaladaasi. shaqaalaha gurmadka ayaana waxa ay mar qura ku dhawaaqeen Allahu Akbar markii ay gabadhan ka soo saareen halkaasi. shalay ayay sidaan oo kale shaqaalaha gurmadka ay soo badbaadiyeen gabar 3 jir ah oo iyaduna 65 saac ku hoos jirtay burburka hoostiisa. weli waxaa soconaya gurmadka baadi goobka loogu jiro sidii loo soo badbaadin lahaa dad weli looga shaki qabo inay ku jiraan burburka dhismayaasha, waxaana weli socota soo badbaadinta dadkaasi. dowladda Turkiga ayaana iminka xooga saartay u gurmashada magaalada Izmir shacabka ku dhibaataysan. guud ahaan daawadayaal waa naga inta warkii aad kala socoteen janalka isha wararka TV. fadlan haddii aan ugu cusubtaa nagu soo biro subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada oo wararka 24 saacan halkan ku baahino. aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka share gareeya laagtiin waa inoo muhiim daawadayaal, waana ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen isha wararka TV.